السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتنا داونيساي waxaa halkan maanta marti noogu ah galabta marti noogu ah labada macallin ama tababare ee ka kala socda Columbus Stars iyo Ohio United. Mahad Cawaale oo ka socdo ama coachka kooxda Columbus Stars iyo Cabdifataax Farey oo ah kooxda Ohio United FC macallinkooda. waxaa la qaban doonaa markay tahay taariikhdu 10 Abriil Jimcada soo socoto insha Allah. waxaa ka dhici doona magaalada Columbus laba koob oo kala duwan oo waaweyn oo ay ka soo qayb gali doonaan kooxo kala badan oo kala socda North America meel walba ay kala joogaanba. aan ku bilaabno marka hore macalinka kooxda Columbus Stars Mahad Cawaale. Mahad Cawaale meeqa koobkaaga meeqa team ayaa ka soo qayb gali doona? السلام عليكم مرتا ومahadsantahay محمد فارح maanta opportunity aan siisay in Cabdifataax also waxaan u mahadcelinahay sanadka.com oo ayagana caawina hoos gareeyay saa sheegtay koobkan waxaa ka soo qayb galaysa tournamentka ay Columbus Stars hoos gareynayso 10 team oo ka socdo 8 state laba team waxay ka socdaan state of Ohio oo matalayaan marka su'aashaada taas ay noqonaysa jawaabteeda. sidoo kale Cabdifataax Farey koobkaaga meeqa team ayaa ka soo qayb galayso oo la qaban doono 10 Abriil? بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فارح aad baad u mahadsantahay iyo dhammaan bahda iyo hooyo ama sanadka sharafta iyo mudnaanta ay nagu soo dhaweeyeen noona ay ballan qaadeen muddo week ka hor inay wareysi nala yeeshaan ayaga oo runaantii isku howlaya in ay bahda Soomaaliyeed ee North America ku nool ay wax u qabtaan si ma garanaysaa ay qaab idaacadeed ama warbaahineed. horta waa ku mahadsantihiin nidaamka awoodaan. waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan bahda sportiga adduunka dacaladiisa ku kala nool meel kasta ay joogaan iyo walaalkay coachka Mahad oo maantay ay aan filay inay tahay muddo ilaa iyo dhowr sano ah markii koowaad aan studio isla soo fariisano asna waa salaamaya Mahad. waxaan kaloo aan su'aasheeda ay aad weydiisay jawaabteedu ay tahay waxaa ka soo qayb galaya 16 team oo ka kala imaanaya dhammaan North America iyadoo 16 team ay 5 kamida ay kamid yihiin kuwa localka oo Columbus jooga. waan mahadsantahay. su'aasha kale aan ku weydiinayo Mahad Cawaale waxay tahay meeqa sano ayaa dhigayseen koobkan kooxda Columbus Stars ee hoos gareynaysay tiimka ka kala socdo magaalooyinka sida North America oo dhan? koobkan uu noqonayo koobkii sanadkii 9aad aan dhigayno waa koobka kaliya North America indoor aan bilawnay oo ka jiro aan soo keeni jirno community-ga. sababaha u sameeyeen waxay kamid ahayd koobkan in dadkii maadaama ay stadiada aysan haysan opportunity winterka la ciyaaro koobka kaliya la aadan u ahaan jira Toronto inaan Mareykan u create gareyno. marka dhalinyaro ay kamid yihiin ragkii soo asaasay aan jeclaan halkan ka mission gareeyo oo ay kamid yihiin Bashiir Geelle ninka la dhaho Usman Gurey nin la dhaho Deeq Xalane iyo dhalinyaradaas iyo macalinkoodi Itop oo asagana mudan abaal ama uu ka soo qayb qaatay sportiga Ohio iyo nin la dhaho Xasan Ebo ay abaabuleen raggii meesha organization-ka aanu maana joogin marka Washington aan degnaa. marka de kolley culture-ka iyo career gareyn baa ilaa hadda 9 sano socdo. waxaan cazumnaa waa same organization-adii oo sportiga magaalooyinka degnaa sida macallin Giftin Atlanta oo asagana noo imaanay Thomas ilaa muddo 9 sano ah sida reer Toronto oo noo imaanay raggii sportiga Mukhtaar Xutti iyo kamid yihiin iyo Yusuf Shaqaaqi raggii Soomaaliya ayagana na support gareeyaan sida Abdullahi Morgan oo joogo meesha la dhaho Minnesota sida uu kamid yahay Beexi oo joogo Minnesota Arab oo joogo Minnesota muslimiin oo raggii hore Soomaali sportiga asagana Seattle joogo. muhiimadda waxay tahay Washington waxa noogu yimaada raggii hore ayagana sportiga ugu horeeyay asaasi North America Washington DC oo kamid yahay Khalif Rico iyo raggiisi iyo Soomaaliyo iyo Saciid gudoomiyaha. raggaas muhiimadda waxay ahayd in la isu yimaado la is arko sanadka sportiga laga wada sheekaysto. marka waa ku guuleysanay muddo 9 sano aan wadnaa tradition-kii maana joojin taariikhda way dheertaan ugu qayb yaraan ka soo galay. Cabdifataax Farey aan su'aal kale ku weydiiyo oo ah meeqa sano ayaa dhigaysay koobkan aad martigelinaysay
gobolada kale oo out of state-ka ah iyo kuwa Ohio sidoo kale? waa su-aal runtii aada iyo aada qiimo u leh oo ay mudan tahay in laga jawaabo. run ahaantii koobkan waa kii saddexaad oo aanu martigelino oo aanu halkan aan ku dhignay. sanadii ugu horeysana waxaa qaaday team isagoo Minneapolis ka yimid. sanadkii labaadna waxaa ku guuleystay kooxda Ohio United oo kooxda horseed oo Atlanta ay final isugu yimaadeen. sanadkanna waxaan rajeynaynaa in aanu dhigno oo hadda tabaabushihiisi abaabulkiisa ugu socdaa. marka sanadkan wuxuu noqon doonaa kii saddexaad ayuu noqon doonaa. mahad waxaa dhigteen koobkan 9 sano sida ay sheegtay. ma ii sheegi kartaa inta mar ee kooxda Columbus Stars ay ku guuleystay koobkan? 9 sano ayaan dhignay koobkan. teamka Columbus wuxuu qaaday 5 jeer. waxaa ugu dambeeyay oo sanadkii ugu dambeeyay hadda qaaday Tennessee oo ay finalka isugu yimaadeen Tigers. waa tradition dheer. marka saan kuu sheegay sanadkan waxaan rajeynaynaa inaan halkaas aan soo celino. dhawaanahan waxaad umaleysaa in laga qaatay sanadkii kasii horeeyay waa Washington baa qaadatay. marka goolkayga waxa weeye inaan soo celiyo. cabditax Frey dabcan 3 markan ayaa ku 3 koobkan aad dhigaysid. wax sponsorship ah ama wax taakuleen ah ama wax caawin ah intee yaad ka heshaa? waxaad ka heshaa Somali community oo fangareeya koobkaaga si loo dhigay in qarash badan ayaa ku galayo oo waxaad ka caawinaysaa 12 team ku imaanayo hotelkooda iyo cuntadooda adiga bixinayo. sidee ayaad ku dabartaa ama wax caawina aad ku heshaa si aad ugu kaafargaraysid 12 team oo ku imaanayo oo adiga aad u tahay hoosta garanaysid? run ahaantii maxamedow su-aasha ay weydiisay waa su-aal aada iyo aada qiimo u leh. su-aashan waxay isu saarantaha 2 su-aalood. marka aan kala qaado sida aan usoo dhaweyneyno iyo fasilaadka ay u baahan yihiin iyo waxa hadday noqon lahayd xagga refreshment iyo raashinka ama ay noqon lahayd xagga jiefka ama su-aasha kale oo dul saarno ah yaa idinka caawiya. waxaan u kala qaadaya labaan u kala qaadaya. midda caawinta sida aad la socoto community ahaan Soomaalida waxaan nahay magaalada Columbus. meesha kaliya oo lambarka labaad gelaysa North America markii la fiiriyo tirada dadka inta ay leeyihiin. hadday noqon lahayd business iyo hadday noqon lahayd community ayuu kala gogo'an oo kala qaybsan hadday noqon lahayd. run ahaantii ma jirto community kaliya oo isu